kusoo dhawaada wararkii Warshiil TV. qodobada ugu doorka roon wararka idin haynana waxaa kamid ah madaxweynaha Galmudug oo dib uga laabtay heshiiskii uu hore ula galay dowladda federaalka ee Soomaaliya. tuhno ka dhashay kulan ay magaalada Muqdisho ku yeesheen saddex madaxweyne oo hore u soo maray Soomaaliya. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa isagu maanta dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho kadib markii uu magaalada New York ee dalka Mareykanka kaga qayb galay shirweynihii guud ee qaramada midoobay. madaxweynaha ayaa intii uu halkaasi ku sugnaa waxa uu kaga qayb galay shir heer sare ah oo looga hadlay arrimaha Soomaaliya. shir saddex geesood ah oo ay ka qayb galeen dalalka Masar, Soomaaliya iyo Kenya. agaasimaha warfaafinta iyo xiriirka warbaahinta ee madaxtooyada ayaa sheegay in wafdiga Soomaaliya ee ka qayb galay shirkani ay caalamka la wadaageen xaaladda dalka iyaga oo sidoo kale soo bandhigay mabaadi'da dawladda ee arrimaha gobolka iyo guud ahaan qaaradda Afrika. wafdiga madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa ay ku guuleysteen inay si cad u hordhigaan madaxda caalamka sida Soomaaliya ay uga go'an tahay in arrinta dacwadda badda ee ka dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya ay tahay in loo daayo hay'adda garsoorka caalamiga ee qaramada midoobay ee iyadoo hadda gacanta ku haysa. sidoo kale agaasimaha ayaa tilmaamay muhiimadda diblomaasiyadeed ee dhismaha safaaradda Washington ee halkaasi laga hirgeliyay ay u leedahay dalkeena iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalweynaha Mareykanka. taliska ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa sheegay in ciidanka xoogga iyo kuwa Mareykanka ee taageera ay iska caabiyeen weerar loo adeegsaday gawaadhi oo ay al-shabaab ku soo qaadeen saldhigga Balidoogle ee gobolka Shabeellada Hoose. war ka soo baxay ciidamada oo lagu faafiyay warbaahinta dawladda ayaa lagu sheegay in weerarka loo adeegsaday qarax, balse qaraxa baabuurtaasi ay ku qarxeen banaanka hore ee saldhigga. inkastoo al-shabaab xoog badan geliyeen weerarkani oo ay gawaadhi u adeegsadeen ayaa haddana ciidamada xoogga dalka oo ka feejignaa waxay in 10 daqiiqo ku soo afjareen weerarkaasi argagixiso iyadoo
oo aanu soo gaarin wax khasaare ah oo dhimasho ah iyo dhaawactoona ayaa lagu yiri qoraalka ciidamada xoogga dalka ayaa sidoo kale sheegay in israsaasayn ay dhacday qaraxa kadib laguna dilay dhammaanba maleeshiyaadkii al-shabaab ee weerar ka soo qaaday goor sii horreysay kooxda al-shabaab ayaa sheegatay inay iyagu lahaayeen amaba ay ka dambeeyeen weerarka lagu qaaday saldhigga waxaana al-shabaab sheegatay inay jabiyeen difaaca hore ee saldhigga ee ciidamadaasi isla markaana ay dagaal xooggan la galeen militariga halkaasi ku sugnaa madaxweynayaashii hore ee xasan sheekh maxamuud iyo shariif sheekh axmed ayaa hoyga uu ka degan yahay magaalada muqdisho waxa ay ku booqdeen madaxweynihii iyaga ka horreeyay ee Soomaaliya Cali Mahdi kulan saacada qaatay oo ay ku yeesheen saddexdaasi madaxweyne guriga Cali Mahdi ayaa waxa la sheegay inay uga hadleen xaaladda guud ee dalka iyo xayiraadii dhawaan garoonka diyaaradaha ee aadan cadde loogu geystay madaxweynihii hore shariif sheekh axmed xilli uu ku waajahnaa magaalada Kismaayo oo uu doonayay inuu kaga qayb galo caleemasaarka madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa sidoo kale qayb ka ahaa kulankaasi mana jiro wax war murtiyeed oo si rasmi ah looga soo saaray kulanka madaxweynayaasha magaalada Muqdisho ayaa maalmihii u dambeeyay waxaa ka socday kulamo kala duwan oo looga hadlayay xaaladda siyaasadeed ee dalka kuwaasi oo ay wadeen siyaasiyiin iyo xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya waxaana kulamadu xoogeysteen wixii ka dambeeyay xayiraadii lagula kacay madaxweynihii hore ee Sheekh Shariif Sheekh Axmed balse dareeno togan ayaa ka dhashay kulanka iyo waxa isu keenay saddexdan madaxweyne xilligani saddexdan madaxweyne oo dad badan aaminsan yihiin inay mucaarid ku yihiin madaxweyne Farmaajo wararka naga soo gaaraya ismaamulka Soomaalida ee Itoobiya ayaa sheegay in saacadihii la soo dhaafay uu halkaasi dagaal ku dhaxmaray qoomiyadaha Soomaalida iyo Canfarta dagaalkaasi ayaa yimid kadib markii koox ka tirsan qoomiyadda Canfartu ay weerar gaadmo ah ku soo qaadeen Soomaali xoolo dhaqato ah oo ku sugnayd deegaanka Allaale oo hoos taga maamulka Jigjiga ugu yaraan 14 qof oo Soomaali ah ayaa ku dhintay dagaalkaasi halka ay ku dhaawacmeen ku dhawaad 10 kale sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daray in deegaanka Allaale ay la wareegeen Canfartu halkaas oo ay hore ugu sugnaayeen xoolo dhaqato Soomaali ahi ma jirto wali wax war ah oo ka soo baxay ismaamulka Soomaalida Itoobiya oo la xiriira dagaalkaasi xaaladda ayaa hadda kacsan iyadoo in xiisada u dhaxaysa Soomaalida iyo Canfarta laga dareemayo deegaankaasi daawadayaal intaasi waxaa naga dhan wararkii aanu idiin haynay tan iyo intaynu ku kulmi doonno warka xiga waxaanu idinkaga tagaynaa